kadib gurmadkii ay dowladda imaaraadku u fidisay qiimaha lacagta turkiga ee hoos u dhacay bishii hore oo mashaariic balaayin dollar gaadhaysa ay imaaraadku geeyeen turkiga xidhiidhkooduna dib u wanaagsanaaday kadib markii uu qasnaa muddo sannadaa ayaa haatan mar kale labada dowladood waxa ay muujiyeen tallaabo geesinimo leh oo taabanaysa qadiyadda ummadahooda iyo guud ahaanba caalamka islaamka kadib markii ay bangiyada dhexe ee labada dowladood turkiga iyo imaaraadku ay kala saxeexdeen heshiis lagu sarrifayo lacagaha gudaha oo waddan walba uu waddanka kale lacagtiisa gudihiisa waxna kaga iibsanayo laguna sarrifayo waxaana bayaan ay soo saaray bangiga dhexe ee turkiga uu ku sheegay in qiimaha heshiisku uu gaadhayo 64 bilyan oo lacagta turkiga iyo 18 bilyan oo lacagta imaaraadka waxaana heshiiskan uu imanayaa xilli Ankara iyo Abu Dhabi ay goobjoog u yihiin oo ay caadiyeeyeen xidhiidhkooda soo wanaagsanaanaya ee ay maalinba xigta sii hagaajinaya heshiiskan haatan dhanka lacagta waxaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado iskaashiga dhanka maaliyadda iyo ganacsiga ee labada waddan waxaana uu socon doonaa muddo 3 sannadood iyadoo ay suuragal tahay in lagu kordhiyo heshiis wada jir saxiixa heshiiskan ayaa waxa uu ka turjumayaa sida ay labada dal u doonayaan inay sare u qaadaan iskaashiga labada dhinac ee arrimaha maaliyadda gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga waxaana uu xaqiijinayaa sida ay uga go'an tahay bangiga dhexe ee imaaraadka carabta iyo bangiga dhexe ee turkigu inay sare u qaadaan ganacsiga labageesoodka ah ee lacagaha wadamadooda si loo dhaqaajiyo xidhiidhka dhaqaale iyo maaliyadeed iyadoo oo waddan waliba lacagtiisa wax kaga soo iibsanayo waddanka kale waana dhirbaaxo weyn oo ay ku dhufteen lacagihii shisheeyaha ee ay wadamadaasi wax ku kala iibsan jireen taasoo madax bannaani siin doonta labada dal una horseedi doonta inay lacagihii adkaa ee ay wax ku iibsan jireen ee sii qaadi jiray ay bangiyadooda yaallaan waana tallaabo kale oo lagu xoojinayo qiimaha lacagta liiraha ee dalka turkiga oo iyadu muddooyinkii dhexe dib u soo hagaagisay kadib markii ay la kulantay jug weyn oo ay weyday qiimaheedii 40% laakiin haatan ay dib u soo noqotay inkastoo aanay lacagta qiimaheedu gaadhin halkii ay hore u taagnayd muddo 3 bilood ka hor heshiiskan oo dhacay Arbacadii waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo ay xaalad xasilooni darro oo dhanka ammaankii ay ka jirto dowladda imaaraadka kadib markii ay kacdoonno cusub oo iska horimaad ay la galeen kooxda reer Yemen ee Xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto imaaraadkuna muddooyinkii u dambeeyay waxay isku dayeen inay helaan madax bannaani dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo militariga ah iyagoo isku dayaya inay ka baxaan xeradii reer galbeedku ay u oodeen gaar ahaan Maraykanku oo ay hubkooda iyo saanadooda militarina ka dhigaan mid dhinacyo badan ka kala imanaysa dhaqaalahooda iyo ganacsigooduna aanu ku xidhnaanin siyaasadda iyo hadba waddanka ay istiidan yihiin iyo ka ay is ogol yihiin waana tallaabo ku dayasho mudan oo haddii wadamada islaamku ay lacagahooda wax ku kala iibsadaan ay wadamada oo dhan ilaashan lahaayeen lacagta qiimahooda taasoo wax weyn ka tari lahayd in wadamo badan oo kale oo caalamka hayna ay wadamada kaga iibsadaan lacagahooda